dhammaan marti sharafka kala duwan culimada jaamacadaha waalidiinta dhammaantiina waxaan leenahay salaan kadib soo dhawaada runtii farxad ay noo tahay in aad nagala soo qabashaan xafladan qiimaha iyo qaayaha fara badan iska leh waxaan rabay insha allahu tacaala haddii ilaahay yaraado in warbixin yaro ku saabsan dugsiyada imaam maalik in aan idinka siiyo runtii dufcadan maanta qalin jebinaysa waa dufcadii 12aad ka aflaxada dugsiyada imaam maalik imaamu maalik waa mu'asasa dugsiyada imaam maalik waa mu'asasa weyn shaqaynaysay muddo kadib xukuumadda dhexe ee Soomaaliya markay dhacday sida ogtihiin wasaaradda waxbarasho wadanka kama aysan jirin waxa ummadda u istaagay waxay ahaayeen dalado waxbarasho iyo iskuulo imaam maalik markuu wuxuu ka mid ahaa iskuuladaas oo runtii meelaha wadanka uu ku badbaaday markii yiraahdo baxa waxbarashada inay ahaayeen waxa wadanka badbaadiyay ilaahay badbaadiyay ay ahaayeen ku soo xigay dad ganacsato ku soo xigeen marka dowlka soo laama imaam maalik waxa la aasaasay 2003 ka hor mu'asasada imaam maalik uu shaqaynayay waxbarashada uu ku jiray ka hor laakiin si rasmi ah markii la yiraahdo dalad inuu hoos tago xawaaye waxaan ka soo bilaabay wuxuu ahaa 2003 ilaa maanta ay dufcadii 12aad ay ka qalin jebiso runtii sharaf ay noo tahay dadka ka soo shaqeeyay mu'asasadaasi sharaf ay u tahay in arday Soomaaliyeed maanta ay dowrkaasi ay u istaageen in ay wax baraan oo dowrkii wasaaradda waxbarashada sida baha waxbarashada kalaba ay u istaageen runtii arday fara badan ayaa mu'asasada ka qalin jebisay daafaha adduunka jooga dibadda waxbarashada ku soo dhameysay qaarkooda hadda si dhammaan dhiganaya ayaa dhammaan mu'asasada ay soo saartay guulaha mu'asasada ay ku talaabsatay waxa u horeeyo in arday aqoon-yahan ah akhlaaqdiisana dhammaan ilaa xadin ma mu'asasada ay ku soo dadaasho inay soo saarto waa guusha u horeyso waxa laga bedelaa waxa ugu dhib badan waa bani aadam qof bani aadamka markii wax la baraa waxa la bedelaa suluugiisa la bedelaa xab dhaqankiisa la bedelaa marka in ay dad noocaas soo saarto guulaha u horeeyo waxa qabadka u horeeyo waa arday Soomaaliyeed oo noocaas ah waxbarashadiisa aqoontiisa ay wanaagsan tahay in aan soo saarno akhlaaqdiisa ay wanaagsan tahay guulaha dugsiyada imaam maalik ay ku soo hooyeen xagga markay yiraahdo tartamada oo kale sida dabcan inta badan ay la socdaan gobolka Banaadir waxaa jirtay tartamo fara badan oo laga qabtay telefishinada gaar ahaan telefishinka la yiraahdo goobjoog oo dabcan ilaa oo dabcan iska kaashanayeen jaamacadda SIU ilaa 2 jeer kaalimaha koowaad aan ka galnay waxay ka mid tahay waxyaalaha ay ku dadaashay mu'asasada ay magaaladana dabcan iskuulada kale ay kula tartamaysay waxa kale ka mid ahaa waxyaalaha mu'asasada ay dabcan lagu dabcan ay sameysay waxqabadkeeda ka mid waxa ka mid ahaa tartanka sidaas oo kale dhowr sano dabcan telefishinkan Universal oo qabtay oo gobolka Banaadir iskuulada loo qabanayay ilaa 3 jeer ayaa laftigiisa ardadeena qiimaha fara badan lahaa oo dadaalka badnaa ilaa 3 jeer ee sanadkan u dambeysay ayaa dabcan kaalimo wanaagsan meel wanaagsan ay galeen sanadkan ugu dambeysay kaalinta labaad ayuu ahay ilaa 3 jeer kale waxa kala jirtay wasaaradda waxbarashada xilliga ay bilowday imtixaan qaadista dhowr sano ka soo wareegatay runtii waxaan ku lahayn 10 arday dhowr jeer aan galnay ku lahayn arday iskuulka dabcan ka soo baxday xarumihiis kala duwan hadda 2 arday sanadkan u dhameeyaan rajeynaya oo wadanka Hindiya joogta oo 10 arday ka mid ahaa hal arday dabcan saas oo kale wadanka Shiinaha jira oo 10 arday ka mid ahaa sanadii hore boqolka ardayna dabcan runtii arday badan ayaan ku lahayn runtii sanadkan imtixaankii ugu horeeyay gobolka Banaadir fasalka 8 dabcan loo qaadayna imaam maalik ayaa kaalinta koowaad ka galay runtii waxay noo tahay sharaf ay noo tahay runtii waxa sanadkan qalin jebinaysa dugsiyada imaam maalik ka baxaysa 343 arday xarumaha
وكالة دوان دكسي إمام مالك مركز كدره مقدشو وسغاشن شن أرضي مركا runtii waa cadad aad u tiro badan insha Allah waxaan rajeynayaa runtii waxa bani'aadamku u wanaagsan midka dadkiisa wax tara marka waxa soo barato maanta waxa taagan tahay meeshii uu sareysay loo hanqal taagay waalid waliba cunugkiisa markuu u dhasho wuxuu ku haminayaa dugsi quraan inuu geeyo markuu dhameeyo dugsar inuu iskuul inuu geeyo dugsar inuu geeyo maanta intaas himiladaasi waalidku u lahaa ayaa soo hooydeen runtii waa meesha maalinka waalidka uu leeyahay runtii Allah ila maanta waa soo dadaashay ardaygaana kulay majaal wanaagsan oo dabcan naftiisuna wuxuu tari doonaa adina wuxuu tari doonaa ummadana wuxuu tari doonaa marka waxaan rajeynaynaa insha Allah inaad noqotaan nabigeena waa kii u lahaa dadku waxa uu wanaagsan midkii dadku wax tara ayaa wanaagsan waana aaminsanahay dad wanaagsan in badan inay ku jiraan oo waalidiintii ardadii waalidiintii iyo macallimiintii iyo mu'assasay ku soo dadaashay وأخلاقياتكودا وحبرشودا إني كجران رجينا وحن رجينا إن شاء الله إذنكو حبرشيد ملوان أسنك قاري مصر إلا محوابي أجري إيو إن أسكاك دونو هدي إله يرادو رونتي سنة كان ترى صد عن شريك الإنجليزي سكول مؤسسة كبح هذي سأل سعتان وطن كوحة كجري سنة كان ظروفه إسكا وصلاء وعذر كي كوفي 19 طبعا عندك حوا أسيبي امتحانك النتيجة لسود الجواد وجيدين runtii رد الفعل في العلن تلقسم ولا ساعتين 343 أرضي أنا قانا runtii كحن وحا كدعدي تضوى أرضي أو دكسيد إمام مالك سجود أنا كالله تضوى أرضي أنا قانا طبعا كو فرح سنين لكن تاس عكس هذا عسلنا وحا سوى جهد جاسي أو 343 أرضي أنا كدعان تضوى أرضي waxaa sabab u ahaa runtii mu'assasada maamulka oo isku howlay maalin waliba si daily ah haday noqoto xaflad gaar ah labada xafiis hormeerka iyo muxuu ahay arimaha ardada in ardaygaas caadi saaraan ardaygaas xilligaas wuxuu arkayaa in culays wax uu lagu hayo asiga uu dhisanaya laakiin maanta oo kale uu arkaya natiijadaas uu arkaya ardaygaas wanaaga iyo dadaalka maamulka uu dabcan uu sameeyay runtii taasana waxaan isleeyahay juhdi badan oo maamulku uu sameeyay warka iyaanan ku dheeraanin waxaan idin rajeynaynaa insha Allah mustaqbal wanaagsan waxbarashadiina halkaas inaad ka sii wadataan runtii ardayga markuu dugsar uu dhameeyo adduunka marka laga feersho ardayga secondary-ga aad loo qiimeeyaa ardayga markuu jaamacad uu tago takhasus gooni uu qaataa kaliya iyo ogaa maskaxda laga dhisaa maadooyin kala duwan ayaa la siiyaa laakiin ardayga markuu dugsar dhameeyo waa arday dhisan بري جهاد وآذان ويقاوة أقول له مرك إن شاء الله وحنا رجينا يا وحبرشيد إنا كفايستان والدين تيني دقلاتان جهد دقي دمع اللي يمكن بحنا إن شاء الله أبال كذا إنا كصاب حدان والدكي يا أوهري رنتي لولاه أنت والد كاس أدريم كتان ظروفه واحد وصل برنا هاي في قصة لو بسوا بحنا أكتهين والد كاس مركو حومدين هاي محو هاي aad u maasan yahay dhammaan mu'assasada macallimiinta way maasan yihiin waan ku dheeraday soo dhawaada waxaan leeyahay hanbaliyo dafcadii 12aad. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.